بسم الله الرحمن الرحيم. anagoo waqti sare oo ka socota xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka soo duulay magaalada Muqdisho waxaan soo gaarnay magaalada Beled Xaawo waxaan u nimi inaanu la kulanno dhibanayaashii ku dhibaatooday weerarkii qaawanaya 25 bisha ka dhacay magaalada. ugu horeysa waxaan rabaa inaan u tacsiideeyo qoysaskii qaraabadii ehelka iyo dhammaan dadka reer Beled Xaawo dhibaatada argagaxa badan ee ka soo gaadhay dagaalkii dhacay 25 bisha. reer Cabdiweli iyo reeraha kale qaraabada ah walaalo inagala joogto waxa ku dhacay maaha wax qof aan la joogin uu cabiri karo. qofka la jooga ayuun baa cabiri kara xaaladda. gurigaanu tagnay oobiyo ku dhacay xaafadda caruurta yani waxaad sawirataa qof walba gurigaagii ood ka soo baxday aad ka maqan tahay oo lagu yiri shantaadii caruur ahayd iyo xaaskaagiiba ma noola oo qofna kama noola oo dibna u arki maysa. يعني qof walba inantaadii yarankaagii yara boosashankaadii xaaladaasaanu hadda joognaa. walla qaybsanaynaa murugada, walla qaybsanaynaa xanuunka. qoyska 9 qof aan qof ka nooleen afar iyo hal qoys iyo qoyska 5 ah iyo qoyska kale 3 dhammaan waa qoyska Soomaaliyeed oo reer Beled Xaawo xanuun baana keenay laakiin waa nagu sii laba jibaarmay xanuunkii hadda markaanu aragnay dhibanayaasha. ilaahay ha u naxariisto dadka shahaadada ah ee gacanta ka xaqdarana dishay. qoysaskana ilaahay samiriye naga siiyo, dhammaanteedna ilaahay samiriye naga siiyo. waxaan intaa u dhaafayaa magaalada waa lagu soo duulay. waxaa ku soo duulay ciidan raba inay dad iyo maal baabi'iyaan. waxaan u mahad celinayaa una hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida oo u jilib dhigay duulaankaas. haddii aanay ciidanka qalabka sida u jilib dhigi lahayn oo difaaci lahayna dhibaatadu inta waa ka badnaan lahayd. maantana halkan maynaa joognay iyo shacabka reer Beled Xaawo oo iskaashaday ayaa magaaladan difaacay. waxaan hambalyeynayaa waana u mahad celinayaa. indhaha iyaga waxaanu ku soo aragnay ay saxaafadduna makhraati ka tahay. saxaafaddana la socotaa oo saxaafaddii gudaha iyo tii caalamiga ahayd bay makhraati ka yihiin dhibaatadu inta ay leeg tahay iyo burburka. dadkii lahaa jabhadi ma jirto kaale Beled Xaawo aragteena. dadkii lahaa Kenya dagaalka kuma jirto kaale arka hoobiyaashii madaafiicda. dadkii lahaa dhib ma dhicino kaale arka walaalada halkan ooyayaanu la ooyina la murugaysanay. dadkii la lahaa waa siyaasado kaale Beled Xaawo. dadkii lahaa guddi baanu nahay oo Beled Xaawo dhibaato kama jirto kaale magaalada arka iyo dhibaatada dhacday. dadkii bari yeelayay Kenya kaale arka maanta xaaladdu sida ay tahay. hadal badan maanta noomeeka waanu caadifadoonay. waxaanu luminaynaa erayadii aan islahayndaha. marka insha Allah waynu guuleysanaynaa. waynu ka guuleysanaynaa cid walba ina soo weerarta. waxaynu ka guuleysanaynaa cadowga dibadda iyo cadowga gudaha. inagu waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa derisnimo, waxaan rabnaa walaalnimo, laakiin waa laynala fahmi lahayn. waxaan rabnaa magaalooyinkeena oo dhan inay nabad ku noolaadaan. Jubbaland nabad noqoto, Gedo nabad noqoto, Beled Xaawo nabad noqoto. laakiin marka lagula fahmi waayo waxa kuu furan waa inaad isdifaacdo. positionkeena ama mowqifkeena hadda waa isdifaac. sidaa taliyuu sheegay, sidaa gudoomiyuu sheegay ma dhaafno xuduud. laakiin xuduudda waxa nooga soo gudba ciidamo, waxa nooga soo gudba madaafiic, waxa nooga soo gudba askar, waxa nooga soo gudba technical. taasaanu adduunyada u sheegaynaa. adduunyada sharci baa ka jira. qanuunka caalamiga international loogu ma ogola in xuduudaha laga gudbo.
afrika way dhaaftay xilligii jabhada la isu samayn jiray ووحي سيدتماتكي iyo toddobaatanaadkii iyo sagaashamaadkii burburiyay Afrika laba wadan oo darisa oo jabhada isku hubeeya waa wixii Afrika khayrkeed ka reebay wadamada ilbaxay extradition agreement bay leeyihiin oo qofka dambiilaha oo isu soo qabtaan si nabadu u sugnaato marabna inaan ilbaxnimo gaadhno oo dambiilayaasha la isu soo qabto la isu soo gudbiyo marabna in dambiilayaashu la soo hubeeyo washida la soo siiyo marse ugu dambeyn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay dhammaan la qaybsadaan murugada reer Balad Xawo iyo qoysaskan maanta aan halkan u fadhino ee dhibaataysan aad iyo aad baan idin salaamayaa